بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa qiimo weyn loo ahaa haddaan nahay miiska wadahadalka inuu maanta nala joogo sheekh cabdirashiid cali oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee fadhigooda yahay Nairobi barnaamijka uu sheekhu martida u yahay waa sidee kitaabka Ilaahay iyo sunnada ummadda lagu soo dabaali karaa sheekh cabdirashiid intii saan ognahay dowladdii iyo khilaafadii weynida islaamka markii ay dhacday ummadda islaamka ururo badan oo islaami ayaa soo baxay oo nin walba uu dadaalayo marka waddada ugu dhow ee ugu saxan ee ummadda lagu soo dabaali karo kitaabka iyo sunnada noo sheeg. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإمام والسلام يا الله نداونا يا لحرير يا برنامج منبر الحوار مركا سيدا كقرصونين روح كستو مسلمة oo diintiisa ku dadaalaya waxaa muhiima in qofku uu markaas iyada dadaalkaas diintiisa ku dadaalayo uu ka qaato aqoon iyo nibraas iyo ikhtibaas ka dhibil qaadasho noloshiisa wax kasta oo ku yimaadana kitaabka iyo sunnada uu ka raadiyo jawaabtooda ama xalkooda qofka isaga marka waxaan ka qarsoonayn in manhajkii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku socdo mahma taqaddama alcumru mahma dahabat alayaam wassinuun mar kastaba inuu nabiga calayhi salaatu wasalaam hadyigiisii kitaabkii sunnada iyo dariiqii salaf saalix inuu ku socdaa la doonayo marka ma laga hayaa salaf saalix wax muujinaya khilaafa islaamiya hadday dhacday in adduunkii oo dhan uu isu dhammaatay muslimiintiina ay isdhiibaan mayo sidaas daraaddeed waxa lagu soo celin karo oo kitaabkii sunnada in loo soo laabto in tarbiya iyo tasfiya la sameeyo iyo tarbiya dadka la sameeyo ee aan lagu boodin manasatul xukmi inaan lagu boodin oo tarbiya la sameeyo oo dadkii diintii la baro oo lagu tarbiyeeyo oo dadku ay fahmaan islaamka dadku ay fahmaan diinta ay fahmaan markay diinta fahmaan oo qaataan waxaa sahlanaanaysa in hoggaanku fiicnaado leanna hoggaanku mujtamac ka soo baxay marka sida saxda waxa weeye inaan qaadano kitaabka iyo sunnada iyo dariiqii nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii iyo dadkii taabiciintaha iyo salafkii sida ay ku socdeen wax isaga booday maarata xukunka oo ku orday ama ku booday ama annagu xukunkaanu soo qabanaynaa ma jirin taariikhdaas dheer culimmada xukunka iyo qaadinimada iyo maamulka iyo wayba iska ilaalin jireen si aynaysu ugu fidnoobin saasaa asalku ah laakiin haddana inaan laga fogaan oo dadka xukunka haya nasaaxo iyo waane iyo toosin iyo lagu wado ayaa muhima oo alculamaa walumaraa labadaas ay wada shaqeeyaan marka taas weeyaan sida saxda waa mahadsan tahay sheekh cabdirashiid kala barkeeyo sida qiimaha badan ee loogu faa'iidaysay sidaan ognahay dowladda islaamku markay burburtay ururo islaami oo fara badan baa soo qaxay haddii aan tusaale ahaan soo qaadno qolyaha loo yaqaano tabliiqa waxay u boodeen inay salaada yidhahdeen salaada
haloo rooro salaada haddii ay asaxdo ay leeyihiin oo salaada ay saxato wax walba waa hagaagaya marka salaada keliya ayay haloo baxo hada rooro oo dadka salaada hala bay leeyihiin ikhwaanka iyo dadka islaax iyo culimadaas waxay sheegayaan in maqaaliid umuur meesha ummadda laga hagayo ugu sahlan ay tahay in halka hore xukunka la gaaro si ummadda loogu soo dabaalo sharciga ilaahay dadka qaarna saad ka dhawaajisay waa in la dhisa bay leeyihiin ummadda oo tarbiya lagu wado marka maxaad ku kala fadilaysaa oo teebaha oo qale wadooyinkaas kala duwan horta jamaacooyinkan bilowmay jamaaco walbaba ninba aasaasay marka laga soo tago jamaacada ama qaabkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ku socday iyo sida kitaabka iyo sunnadu ay sheegayaan dadku in la kala dambayn jirto oo tarbiyad iyo akhlaaq iyo diin iyo ay jirto madax iyo oo xukunto iyo dadkii shacabka ahaa madaxdaas aan lagu kacin oo la ridin haddii kufri bawaaxade aan lagu arag in tartiib maaragtay yani loo noolaado noloshu ay caadi noqoto laakiin qof isagu xukun raadisa nebigu waa kii yidhi calayhi salaatu wasalaam labadii nin oo ku yidhi rasuulka ilaahayow madax naga dhig nebigu waa tuu yidhi maaragtay maya madax ladinka dhigi maayo waa tuu u diiday calayhi salaatu wasalaam abudar alkhafaarina waa kii yidhi inaha nadaamatu yowma alqiyaama xasratun fi dunya wa nadaamatu yowma alqiyaama dunkana xasray tahay آخرنا والندام مركوا توسيداس لو كويل نبي مركا عليه الصلاة والسلام سيدا سويري وحسرة يقومون شليتو أي قفك كون نقونيسا مدح لماذا مركوا كويل حتى لما قف مدح ونقون حديثك قيبه سروايو كيس قيب كمل taas waxay tusinaysaa qofka maanta xukunka aadaya oo u ordaya inuu xukunka wax ka raadinayo ay u badan tahay boqolkiiba 90 kow jamaacaadkan marka qaybsamay culimada qaar waxay u arkaan inay yihiin innahu subul jidadka lagu lugo ilaahay marka wuxuu leeyahay markuu ka hadlayo walaa takuunu min almushrikiin min aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiica كل حزب بما لديهم فرحون آيات هنقولنا كو مشركين تا كو سواء كو دين تودي كو كالتيو اسكو لاي اسكو بابئية إلا تفرق أي اختلاف كو كالدوية اختلاف واحد اسكو خلاف ومسألة كالسؤال اسكو خلاف يعني بين نقول كتال لكن تفرق واحد نقول إيسا كلا تفرارق سعلا ويستو مركا اسليسو دي كذا حراشي قلوب قاعد يسيسو وين نقول إيسا تفرقات وكانوا شيعا أو نقضي كح حزب مثالها والله قال لك أحزاب تفرقات كل حزب بما لديهم فرحون هدنا نول بقمني سقورته وجرا حزب والبا وحاو يسوي هاي أو كسعده أو هايستو طريقة ديس يا أما يعني جماعة ديس أما حركة ديس تاس وحي هستان بكفر حسين هو حكم مقنطاي ديني كم مقنطاي إلهي محيي رسولكم محيي لما أراني يقول بكوح ومارتين ميل دكتي وحنا يراني كوح هذا شروطها أسبار وصول قلا شروطها أسنوال وقبحها حقا قبحها مكي سامارت أنا خلافة وهو عسى فرعون بوليهي سو ماركز مركا مشكلة داس أيها كان عدوة كسبيرنسي قانون لنا هاي جماعاتك لا يقدمون ولا يؤخرون إلا خلافهم بأمد أبدية وحي كينين وهذا النصر يوحد قوله يا خلافة السوء عليين منا ما هم حامرك المراعة يا تبليغ وحلية صلاة وإنه وحيه أنه الروح الله تصفيه ذكر بدن الله سماه الصوفية وحلية سيدو كله وإن مرتي أدونك لقد إرادة وكانوا جوع يقاچا اللي يسكت له وردق الله بديه هالكاس يرو كدوش إخوان وحليه وإن حكم كلا قبصده مركز كبعد وأنا نروح إصلاحنا يعني كل هذا يعني قلوا لما ماش هذي ولي تاجت شوف ماش هذي تشوفه إلا كنتم صنوا لحدا صنوا بقول صنوا يا نجا وطن كان سير كسو قارين إلا فرطن كنتم صنوا
ay shaqaynayaan leeyihiin kooxda kale ay leedahay hible iska jira qoladaa iska jira marka wa kaanuu shiican kullu xisbin bimaa ladayhim farixuun soo maaha marka sidaas wey aayadda kaloo ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala walow shaaa rabbuka lajacala annaasu ummatan waaxida walaa yazaaluuna mukhtalifiin hadduu rabbigaa dooni lahaa dadka wuxuu ka dhigi lahaa hal ummad hal koox bay wada noqon lahay waaxida oo keligeeda walaa yazaaluuna mukhtalifiin laakiin ka zuuli maayaan inay iskhilaafayaan ilaa man raxima rabbuka qofka ilaahay u naxariista oo rabbiga u naxariista marka aayaddaas istithnaha ikhtilaafkaas kaasoo macnaha laabudka ah waa qadari ikhtilaafku waa wax qadar oo ilaahay qadari wey laakiin sharci yacni ma aha in la iskhilaafo oo laynama amrin in la iskhilaafo oo la kala tago koox la kala noqdo iyo gurub laynama amrin laakiin ikhtilaafku waa shay qadari ah walaa yazaaluuna mukhtalifiin ba ilaahi subxaanahu watacaala istithnaha dambe oo ah ilaa man raxima rabbuk kaasaa la rabaa qof walba inuu galo istithnahaas oo ah ilaahay qofka u naxariistay mooyaane kuwaas ilaahay u naxariistay waa kuwa marka kuwaas waxa weeye kuwa ummadda marxuumada ah wey laa shaka jamaaco walba inay doonayso inay noqoto oo ka mid noqoto ummatulmarxuuma ummadda loo naxariisto ummatu maxamed sal alla alay slam oo dariiqa saxda ah laakiin mustathnaa jira oo dadka waa kuwa iskhilaafay khulaasaduna waxa weeye mixnadaas iyada oo ikhtilaafka ah waxaa looga bixi karaa arrujuuc ila alkitaabi wasunna wa ilaa dariiqi salafi saalix kitaabkii sunnada in la qaato oo markaas salafu saalixna lagu socdo dariiqoodii taasaa saxa manhajkaa isagaana nebigu waa caddeeyey calayhi salaatu wasalaam maalmihiina saxaabada iyadoo fadhiyaan iyo wuxuu jeexay khad buu dhulka ka jeexay yani wuxuu jeexay xariiq yani toosan xariiqo yaryar buu dhinacyada uu ka jeexjeexay markaasuu yidhi hada sabiil wuxuu akhriyay waana hadaa siraata mustaqiiman fattabicuuhu walaa tattabicu subul kaas xariiqdii fartiisuu ku fiiqay nebigu calayhi salaatu wasalaam jidkaa toosan oo xariiqdaasa yaa jidkaygiyaba alla yidhi subxaanahu watacaala kaas fattabicuuhu raaca isaga walaa tattabicu subulka kale dariiqyada kaloo dhinacyada uga baxay oo lagu macnaynayo macnaha jamaacaadka iyo axsaabta iyo waxaan ku leeyahay iyo xarakaadka ha raacina fatafaraqa bikum can sabiili oo jidka ilaah idinkala kala tagaan qofku hadda marka waxaad arkaysaa jamaacadiisa iyo kooxdiisa iyo xisbigiisa ama xarakadiisu u shaqaynaya oo dadka ugu yeeraya oo iyada shuruudaha ay dadka u dhigatay iyo sida ay dadka markaas iyada kusoo jiidan lahayd waxay ku habaysatay oo ta'wiilaad xataa qur'aanka iyo sunnada mararka qaar ay ka keensanayaan ayuu qof waliba macnaha ugu yeeraya jidkii ilaahay oo saxnaa nin maanta caalima oo ugu yeeraya dadka jidka ilaahay isagoon firqo gaara ku xiraynin oo ilaahay ku xiraya waa yarta aad buu u yari soo ma arkaysa marka waxaa ka mid ah hadalladii nebiga uu yidhi jidadkaasoo dhan likulli albaabadooda mid walba shaydaan baa taagan albaabkiisa oo dadka ugu yeerayo le soo gal dariiqan jidkiina weli waa socdaa mustaqiimka marka kuwaa yaroo ka baxay baa mid walba shaydaan baa jidkiisa taagan marka taasoo kale lagu mateli karaa haddaan lagu mateli karin yaa lagu mateli karaa taasoo kale lagu mateli karaa maanta xarakaadka iyo jamaacooyinka iyo axsaabta يعني كلا أردية مركز نسأل الله سلامة وتوفيق. وما سنت يا شيخ الله بركيه. يا شيخ ورود دعالما هي الحكم كان سؤال الإسلام يقوى سياسة الدعالمية بدأ أحوالها يقوى تسجيل قاتل خروج كوبها صلاة إذا ودي يدرك هو ثالثين هذا يقوى سوريا اسكندر ورود فما تضحى شيء كان كتاب يسمى له كتابه wadadii salafka ay hayaan maxaan ku garanaynaa dadka sunnada saxda ah haya si ay u gaadhaan dowladnimada islaamka man aslaxa nafsahu aslaxa gayrahu qofkii naftiisa islaaxiyaa qayrkiina islaaxin kara waxaa lagu islaaxayaana waa alkitaab wasunna
هي طريق السلف الصالح شو مركز صحابتي تابعينتي ومضوا تاسع ومضى سوحي كسعتي عندي كسعتها صح وقرنيسا أو قرن صحيح وأن فرقة قارة وحركة قارة أما جماعة قارة تتأمل جماعات كي جدي ويوضع داتين ويشبه وابا جدي أرجيسا جماعة عصوبة هذا الله كان وحول فائدين ما كتاب كي سنة ما وافق سنة وأقواس هذه أحاديث والنبي عليه الصلاة والسلام أعطى حديث قال الشيء اختلفت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة لا سمرك ومدة كتاب كي سنة وحيسا وجماعة هبل الله به مال لما ديه كروا سلفية أما صوفية أما فلان يا علان يا لكن وحل الله يقف كي كتاب كي سنة وكسعدا كائنا من كان عدو يهيبة فهو على الصراط المستقيم خلاص ساسو يمكن وما صدق عليه gabadhii sheekh waxaan soo gaarnay haddii sidaa la isu garab hoorayo oo dowladdii markii islaamku burburtay ururada islaamigii ninba dhinac ku shaqo rooday si loo soo celiyo khilaafadii iyo islaamkii awoodda badnaa iyo dhaqankii toosnaa dadkiina asaas sheegaysidba ay ururo u qaybsan yihiin fara badan sideeba culimada loo midayn karaa iyo firqooyinka loo midayn karaa hal firqa oo isku dhinac ujeeda looga dhigi karaa isla waa su-aashii horoo kale kama foga waxaa ummadda isugu imaan kartaa waa cala aljaada jidka toosan وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله كتاب جدك يا وجدك بالتوصناء فاتبعوه جدك الله تماما يا وكتاب القرآن كي سنة النبي عليه الصلاة والسلام فاتبعوه رعا والنبي قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا كتاب كاس إله بسود الجيل شو مركز تاسو بالا سوق إيمان كرم انت أرورضا إيا وحاس إيا جماعاتك إيا حركاتك إيا فرع لقاء كتابك إيا سنة اللي يسوي ماله أمدنا هلا برو هلو تربيه ذاتك دينتي ما بيقانان وذاتك لو كتاب أخريها وقول إسلايها هذا هو واجبك واجبك منع سياس ما وإن ليسكاشلو أو ليسو كاشلو دينت الإسلام كإيضا فرقوي الأهين وحق لغا ترجموه كتابك السنة أنا ضدك الله برو لا يسبرو كتابك السنة يا ضدك الله برو ضدك طريقي صحابة يتابعين تسلف الصالح إلا برو إله النجار يجتهد كودين الله نمر تاسو يمد الله يسوق إيمان كرا أو أمده أي غمي يهمي كربح وما سنتهاي الله بركاشه سيدا قيمة بدني كان نقطة التلفزيون كاس هذه أيضا كانت محددين دام هاي بعض الناس كوالهانك فرق جاء وقت جاء نسيسي إلهي محاول دي سنة لغة فرق هذا الكيس ونفسن إلهي تبارك وتعالى آخرين دون أكبر كيو أنا نقول كفاية اليوم وما صدق الشيء سولو جزاك الله خير بارك الله فيك